uu ka muujiyey mudane jaalle firfircoone aad u heersaraysa iyo tababaridda ciidamada innagoo tusaale uga soo qaadan karnaa gabaygii uu mariyey abwaankii weynaa ee dhoodaan markii uu sifaynayay waxqabadkii mudane jaalle isagoo yidhi kalahaadda waagii baryaba layna kicinayo kadla orodka biiti dabadeedna la kaxaynayo iyadoo kulayl loo muldhaday kowda lagu waashay kaariga birigaanka iyo keligii baalsiinta dabadeedna soo koogaray ee ku kabaroofta dharkaas sida karbaashka u madhiyo kabala'aanteenna niman yahow kadeed aad qabtaan kaas hamoodinae haddaan hawsha loo sii kurbanin kaabigay timid ee n f d kurkigeed sow kenya noqon mayso kalaabiintii reer xeelanaya oo faransihii koodhay iyaguna kuway laynayaan sow kaba sabar maaha haatan wafdigu waxa ay marayaan nambar 4 oo aad wada taqaanaan magaalada muqdisho halkaasi oo mudane jaalle nasiib u helay inay wax ka soo dhoweeyaan xitaa dhismayaashii isagoo u dhisay taallada ama meeshaasi argada aad taqaanaan loona yaqaano arga traniofo di popolare ama argadii guusha dadweynaha waxa uu hirgeliyey mudane jaalle intii uu ahaa duqa magaaladan muqdisho sanadihii 70-meeyadii bilowgoodii haddaba daawadayaasha sharafta low haddii aan taariikhdii halkaas idinkaga sii wado waxa uu xeradaasi joogay intan iyo intii uu ka dhacay dagaalkii la magacbaxay aagga ina guuxa oo ay boqortooyadii amxaaradu ku soo qaaday soomaaliya sanadkii 1964 oo markaasi cusbayd iyadoo amxaaradu u diidanayd inay soomaaliya xoroodo ama lugaheeda ay isku taagto dagaalkaasi oo daawadayaal sida aad ogtihiinba jab xooglii ka gaaray amxaarada ayaa ciidamadii uu hogaaminayay mudane cusmaan maxamed jaalle ay dharbaaxo lamiilaawaana siiyeen islamarkaana ay kaga soo furteen halkaasi hooba iyo taangiyo iyo saanad military oo fara badan isagana waxaan idinkaga soo qaadi karaa gabaygii isla abwaan cabdulaahi dhoodaan oo ka mid ahaa raggii uu soo tababaray ciidamadana uu qoray mudane jaalle oo halkaasi ka mariyay dagaalkaasi gabaygaasi oo aan kaga soo qaadi karo dhowr beej oo ay ka mid ahaayeen salaaduu habboonaatay ku hidda waasna dheh hahay cusmaanow haddaan ku halweynaynaaye sida howl yaraan ugu socdeen howl camal liifsiinay hamuun gorayo wiilkii lahaa horin ma soo goostay hurdo fiican xaylow ku jira mahan fariirsiinay heegdheerayaashu jeclaa haadda ma u lognay oo rag maraykan waa tuuhoodaye hiil ma u noqon waayey sanadkii 1965kii mudane jaalle waxaa loo magacaabay abaanduulaha ururka 14aad ee gobollada gaashaaman oo uu saldhigiisu ahaa xerada cadaadle waqooyi galbeed halkaasi oo qayb libaax ka qaatay tababaradii ciidamada loo tababarayay aqoonta iyo weliba adeegsashada taangiyada sanadkii 1966kii waxaa mudane jaalle loo magacaabay madaxa xafiiska maamulka iyo taakulaynta qaybta waqooyi galbeed ee xoogga dalka Soomaaliyeed daawadayaal sharafta oo martida haatan waxa ay marayaan isla wadadii Maka al-Mukarrama oo aad u bilacsan isla markaana ka mid ah san hore idinku soo sheegay wadooyinkii uu ka hirgeliyay mudane jaalle intuu magaalada ka ahaa duqa magaalada waxa ayna soo dhaafeen haatan agaarka hotel waheliye iyo ku soo durkaya barxadda waliyo cadde isla markaana ah degmada Waaberi iyo halka u dhaxaysa degmada Howlwadaaga iyagoo markaan gacanta midig ku haya masaajidka isbahaysiga dhankaasi uu ku xigo isla markaana u soo degdegaya dhanka Ceelgaaba sidaad u muuqataanba masaajidka isbahaysiga sawirkiisii haatan indhihiinii uu ka muuqday waxa ayna ku soo durkayaan dhinaca National Theatre-ka sanadkii 1967kii mudane jaalle waxaa loo bedelay xarunta dhexe ee taliska xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo lagu magacaabay madaxa hoggaanka ilaalinta sirta ee xoogga dalka wuxuuna ahaa mudane jaalle sargaalkii ugu horreeyay ee madax ka noqda xafiiskaasi halkaasi oo uu joogay ilaa uu ka dhasho kacaankii militariga ahaa ee 1969kii sanadkii 69kii markii uu dhashay kacaankii waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyaashii dhaliyaashii kacaankaasi kuna jiray golihii sare ee kacaanka isagoo si gaar ah ugu xil saarnaa arrimihii shaqaalaha 1970kii waxaa loo magacaabay duqa magaalada muqdisho isagoo intii uu joogay hirgeliyay mashaariic badan oo ay ka mid yihiin dhismo wadooyin fara badan iyo buundooyin sida kuwa degmada Xamarjaba ee Dulmara hirgelinta nidaamkii gaadiidka dadweynaha oo 12 bas ku bilaabay kadibna 20 bas lagu hirgeliyay dumintii oo basiibadii Wardhiigley oo sameynta magacyada degmooyinka nidaamka jaagooynta magaalada iyo waxyaabo badan oo aan halkan ku soo koobi karin oo uu ka qabtay intii uu ka ahaa duqa magaalada mudane jaalle magaalada muqdisho haatan wafuuddu waxa ay maraysaa sida aad u jeedaanba wadada Maxamuud Harbi ee kor u soo korsata degmada Wardhiigley iyagoo markaasi ku soo durkaya xeradii weynaa ee dictatorkii Maxamed Siyaad Barre u dhistay cadaadinta ummadda Soomaaliyeed xeradaasi oo la magac baxday Villa Soomaaliya isagoo markaasi aan u galeen isaga mooye iyo waliba dabadhiifayaashiisa inay cid kale soo gasho laakiin waa lama hadii ay jabhadaha iyagoo isgarabsanaya ay ka saareen xindaabkaas weyn ee hortiina ka muuqdo iyadoo ururka USC uu markaasi u ahaa hormuud la taaban karo waa taa darbiga weynaa
ee maxamed siyaad barre uusan marno ku fikirayn in looga soo dhici doono hase yeeshee barraxume ay ku noqotay qorraxda oo ku soo iftay markii uu arkay in looga soo dhacay isagoo taangii ku baxsaday waataa sida rasaasta loogu galay iriddii weyneedna sidaasi ay u burburiyeen mujaahidiintu waxaana filaynaa in ummadda soomaaliyeed dadaalkaasi uga baxay faraha badan inay kaga faa'iidaysan doonto islamarkaana ay ka waantoobi doonto waxyaabaha keenaya inay dhexdooda ay ka dhalato dhibaatooyin fara badan sanadkii kii waxaa loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha mudane jaalle wasaaraddan oo cusbayd waxaa ugu horrayntii mudane jaalle u sameeyey qaabka iyo nidaamka howlgalkeeda isagoo hirgeliyey mashaariic badan oo ay ka mid yihiin dib u habaynta dugsiyada tababarka xanaanada xoolaha bilaabidda mashaariicda digaaga oo kii ugu horreeyey laga hirgeliyey kilomitir 7 muqdishona kii kale laga bilaabay hargeysa hargelinta mashruuca gosha iyo gandiga oo dalka ugu horrayntii laga bilaabay kordhinta iyo tayaynta daawada ka bilaabidda dalka mashruuca bacadcelinta iyo shalaambood kadib markii uu maxamed siyaad barre gartay inuu si qiyaamaha xukunka uu keliyoodo ayuu ka saaray golihii sare ee maamulka dawladda iyadoo sida isaga iyo rag kale la keenay golihii ummadda loona kala qaybiyey guddiyaal lagu kala magacaabay guddiga arrimaha bulshada guddiga dhaqaalaha guddiga siyaasadda iyo guddiga cadaaladda sanadkii aasaaskii xisbiga waxaa lagu magacaabay xisbiga antiwadaha kacaanka soomaalida la odhan jiray waxaa looga dhigay mudane jaalle guddoomiyaha hoggaanka maaliyadda ee xisbiga islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga qaabaynta xisbiga wuxuuna mudane jaalle lahaa qaabaynta iyo dhismaha xisbiga iyo 4 urur bulshadeed ee hoos imanayay kadib waxaa loo bedelay hoggaanka cilmibaarista halkaa uu joogay ilaa dhismihii golaha shacabka sanadkii halkaasi oo uu maxamed siyaad barre mar kale ka wada saaray xisbigii iyo dawladdiiba isagoo ka mid noqday guddiga arrimaha bulshada ee golihii sare ee kacaanka gaar ahaan xil uga saarnaa hay-adaha wasaaradda cadaaladda shaqada iyo isboortiga iyo dawladda hoose ee banaadir wafuud haatan waxa ay maraysaa sida indhihiinna ka muuqataba agagaarka siinaay oo ah degmada wardhigley iyagoo ku soo socda waddada maxamuud xarbi dhankaana kor ugu soo korsanaya waddada soddonka waxaana markaasi indhihiinna ka muuqda iyadoo magaalada muqdisho ka soo kabanaysa dagaalkii sokeeye ee mar dhow loogaga xoreeyey keligii taliyii maxamed siyaad barre iyo ciidamadiisii waa kuwa guryihii la odhan jiray efi aakhiro oo ka mid ah guryaha ugu bilicsan oo lagana dhisay xaqa dadweynaha iyo xuquuqdooda hase yeeshee dictatorkii siyaad barre uu isticmaali jiray inuu ku xareeyo ciidamadiisa iyo kuwa isaga dabadhilif ku ah maantase waxaa ilaa mahadiya inay ka xoreeyeen ciidamada u a c iyagoo garabsanaya jabhadaha kale islamarkaana ay kaga saareen waadna u jeedaan sida quruxda badan ee ciidamada u a c ay u galbanayaan wafuudda uu hogaaminayo mudane cusmaan maxamed jaalle oo ka soo laabtay boqortooyada sacuudi arabiya gaar ahaan ciidamada u a c ee gobolka hiiraan oo iyagu ah mujaahidiinta lafdhabartu ah mujaahidiinta u a c haatan wafuudda waxa ay ku soo socotaa dhanka iyo waddada soddonka iyagoo cagta soo saari doona islamarkaana loo sii galbin doono ilaa iyo hotel lafweyn halkaasi oo ay martidu ku nasan doonto haddii allaha awoodda leh uu oggolaado haddaba sanadkii kii xisbigii ayaa loo celiyey mudane jaalle mar kale isagoo looga dhigay guddoomiyaha hoggaanka guud ee cilmibaarista iyo caafimaadka ee xisbiga antiwadaagii kacaanka soomaaliyeed halkaasi oo mas-uul ka ahaa ilaa iyo 9 juun kii isagoo shaqadiisa gudanaya oo uu dhigicabkii siyaad barre u taxaabay xabsiga 20 jirow kaasoo caan ku ahaa cadaadinta iyo jirdilka maxaabiista aan waxba galabsan taasi oo uu maxamed siyaad barre u samaystay dhowr meelood oo markaasi kala duwan inuu dadka uu ku cadaadiyo
ودهادي